wax ka bara taariikh nololeedka murashax xildhibaan cabdirashiid maxamed baaxeer. cabdirashiid maxamed baaxeer waxa uu ku dhashay magaalada Burco sanadkii 1969. waxa waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe ilaa sare uu ku soo qaatay gobollada koonfureed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1984. waxa uu ku noolaa dalka Imaaraadka Carabta. waxa uu sii waday aqoon kororsigiisa waxaana uu ka gaadhay heer shahaadada loo yaqaan masterka oo uu ku qaatay cilmiga siyaasadda iyo garsoorka. waxaana intaa u sii dheeraa shahaadooyin kale oo heerar kala duwana oo ku saabsanaa maamulka iyo maaraynta. shaqooyinka ugu muhiimsan ee murashax xildhibaan cabdirashiid maxamed baaxeer uu qabtayna waxaa ka mid ahaa inuu ka soo shaqeeyay dalka Imaaraadka Carabta muddo 17 sannadooda isagoo ka shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Imaaraadka muddadii u dhaxaysay sanadkii 2000 ilaa 2015. waxa uu ka shaqaynayay shirkadda Dahabshiil oo uu ka tirsanaa maamulka sare ee sharikadda u qaabilsan wadamada UK, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. sanadii 2016 ilaa 2019 waxaa maareeye guud uu ka noqday sharikadda dhinaca dhismayaasha ee Najah Construction xafiiskeeda guud ee Somaliland. wixii ka dambeeyay sanadkii 2019 waxa uu yeeshay sharikado gaar uu leeyahay oo ka jira gudaha dalka iyo dibaddiisaba. kaalintiisa arrimaha bulshada laga soo bilaabo markii uu ahaa 18 jir, murashax cabdirashiid maxamed baaxeer waxa uu ka dhex muuqday ka howlgalka danta guud iyo adeega bulshada, waxaana uu ka mid ahaa dhallinyaradii xilligii burburka iyo colaaduhu ay jireen isku hawli jiray gacan qabashada dadka qurbaha u qaxay, gaar ahaana dadkii tegay waddanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi. waxaa kaloo uu gacan ka geystay taakulaynta dadkii shacabka ahaa ee galay xeryaha qaxootiga. 1998 waxa uu ka mid ahaa wafdi ka socday qurba joogta reer Somaliland, gaar ahaana magaalada Burco ka soo jeeday ee ku sugnaa magaalada Abu Dhabi ee nabadaynta iyo dib u dhiska ka qayb galay. cabdirashiid maxamed baaxeer waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaasha hay-addii shacabka magaalada Burco ay u bixiyeen gacma isasaarka ee sanadkii 1998 ilaa 2001 dib loogu dhisay magaalada Burco, kaasoo waxqabadkooda ay ka mid ahaayeen dhismaha dhakhtarka weyn ee magaalada Burco. Mr. Baaxeer waxa uu ka mid ahaa xubnihii lagu diiwaangeliyey hay-addii nabadaynta iyo dib u dhiska Burco ee laga aasaasay dalka Imaaraadka Carabta. sanadii 2008 waxa uu guddoomiye ku-xigeen ka ahaa ururkii loo yaqaanay AMIC ee ka jiray dalka UK, kaasi oo qaabilsanaa wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan. sanadii 2015 waxa uu Somaliland ka aasaasay ururkii Daddis ee la dagaalanka qabyaaladda, waxaana uu noqday guddoomiyaha guddiga sare ee Hadaf Holding Company, xilkaas oo uu hayo 2018 ilaa iyo hadda. Mr. Baaxeer waxa uu sidoo kale haatan yahay guddoomiyaha guddiga sare ee hay-adda khayriga ah ee Gaashaan. musharax cabdirashiid maxamed baaxeer maanta waxa uu ka mid yahay murashaxiinta u tartamaya ka mid noqoshada golaha xeerdejinta ee dalka. waxyaabaha ugu waaweyn ee ku riixaya inuu hamigaasi yeesho waxaa ka mid ah inuu aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisaba uu geliyo horumarinta dowladnimada. xaaladda dadka iyo dalka ayaa u arkay in lagama maarmaan ay tahay in isbeddel loo horseedo.